ku jira maxamed ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn. mas-uul sare oo diblomaasi ah warar laga soo xigtay ayaa lagu xaqiijiyey in Iiraan la gaarsiiyey 15 qodob qorshe ka kooban oo hindise ah oo Mareykanka uu gudbiyey oo lagu tilmaamay inuu yahay mid wax badan lagu raadinayo aanan ahayn mid loo qaateena oo sida hadalka loo dhigay. Ilaahaas ayaa waxay sheegayaan waxa warbaahinta qaarkeed lagu sheegay ee la xiriira qodobadaasi xaqiiqada kama turjumayaan iyo nuxurka ku qoran hindisahaas. Ma aha wax qurxoon xataa markii warqad lagu qoro hindisaha uu Mareykanka gudbiyey sida ilaahay sheegeen waxaana lagu baaqay qorshahaas inuu yahay mid khiyaano ah oo marin habaabin ah iyo sida loo soo gudbiyey intaba. Ilaahaasi ayaa sidoo kale waxa ay xaqiijiyeen in mar walba Mareykanku isku dayayo in uu sii fogeeyo hadafyada uu leeyahay. Iiraanna aad ayay u fahamsan tahay arrintaasi iyo waxa ay rabto waxayna diidaysaa waxa ayna ogoleyn. Ilaaha waxay intaas ku dareen ma jiri doono wada hadal toos ah oo Mareykanka iyo Iiraan dhex mara mana dhicin wada hadal Iiraan iyo Mareykanka oo si dadban iyo si toos ah u dhex maray wixii ka dambeeyay bishii February 28keedii markii uu dagaalkan bilowday. Fariimaha la kala bedelanaya waa sida hadalka loo dhigay ayaa waxaa kala qaadaya dhexdhexaadiyaal. Afhayeenka baarlamaanka Iiraan Maxamed Baghir ayaa sheegaya in Iiraan ay si dhow ula socoto dhammaan dhaqdhaqaaqa uu Mareykanka wada gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan ciidamada uu keenayo. Waxa ay generaaladu ay ku fashilmeen askari ma sixi karo ayuu yiri afhayeenka baarlamaanka Iiraan. Taa bedelkeedii waxa ay noqon doonaan askarta la keenayo kuwo dhibanayaal u noqda khiyaaliga uu Netanyahu dabada ka riixayo. Afhayeenka wadanka Iiraan ee baarlamaanka ayaa bartiisa X ku qoray fariintan cid tijaabin karta ma jirto yiri adkaysigeena aan ku difaacayno wadankeena. Marsii horeysay mid kamid ah warbaahinta reer galbeedka ayaa ku warantay in ka badan 1,000 askari oo ka tirsan dufcada 82 ee ciidanka cirka ee Mareykanka in la geeyay gobolka Bariga Dhexe. Intaa waxaa dheer in la geyn doono qaybo kale oo kamid ah ciidamada badda ee Mareykanka oo 5 gaaraya. Kumanyaal kale ayaa sidoo kale gobolka loo soo wadaa. Israa'iil ciidanka u qaabilsan difaaca bulshada ayaa ku waramaya 24 goobood oo kala duwan ee ku yaala waqooyiga Israa'iil in Iiraan ay si xoog leh u duqayso. Sida laga soo xiganayo ilahaasi waxa ay saameyn weyn gaartay 11 goobood oo Xayfa ku yaala. Waxaa sidoo kale waxyeello ay gaartay 10 goobood oo ku yaala magaalada Akka iyo deegaanada ku dhow. Sidoo kale 3 deegaan oo ku dhow galbeedka Jaliil ayaa iyadana duqeyn ay gaartay. Waxaa iyadana wargeyska afka Hebrew ku baxa iyo Dacood Axranood uu soo xiganaya ilo sheegaya in gantaalada Iiraan soo riday in gantaalo badan laga soo riday dhanka Lubnaan aan iraahday oo lala beegsaday 10 gantaal magaalada Xafa iyo badaha ku dhow halka wasaaradda gaadiidka Israa'iilna ay ku dhawaaqday in ay ku wargelisay shirkadaha diyaaradaha ee caalamka inay kordhiyaan xilliga ay ka maqnaan doonaan garoonka caalamiga ah ee Ben Gurion oo u baahan waqti ilaa inta laga gaarayo Abriil 16keeda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay gaartay dhammaan hadafyadii waxa uu ku tilmaamay ay ka lahayd dagaalkan weyn ee military ee Iiraan ka dhanka ah. Wuxuuna intaas ku daray dadka siyaasadooda bidixda u janjeerto iyo dimuqraadiyiinta nacab wadanka Mareykanka ayaa isku dayay buu leeyahay inay fidna ka dhex abuuraan wadanka Mareykanka dhexdiisa waxayna yareysanayaan guulaha ciidamada Mareykanku iyo Mareykanku ay ka gaareen wadanka Iiraan. Dhanka kale Senator Jeff McCalley ayaa sheegay Trump in uu bilaabay dagaal qaanuunka khilaafsan غير مسؤولnimo ah oo ka dhana wadanka Iiraan lacag badanna ay ku baxday dhiig badanna uu ku daatay
ururka xisbullah ninka xogayaha guud waa naciim qaasim ayaa laga sii daayo khudbad cod ah oo uu soo duubay, wuxuuna sheegay israa'iil in ay duqeynayaan ilaa iyo inta ay ku soo rogi doonaan inay isdhiibto. waxaana uu sheegay in loo midaysan yahay, uuna ku baaqay in loo midoobo sidii looga soo horjeesan lahaa iiraan marka ay timaado siyaasadda arrimaha gudaha ee waddanka Lubnaan. hadalkan oo laga sii daayey warbaahinta ururka xisbullah ayaa dagaalyahanada xisbullah waxay isu diyaarinayaan inay dagaal aan xid lahayn ku qaadaan israa'iil. qaasim ayaa ka dalbay xukuumadda Lubnaan inay qaadho waxa uu ku tilmaamay xanibaadda ay ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa militariga ururka xisbullah. hay-adaha xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa cambaareynaya weerarada aadka u guracan oo ay xukuumadda iiraan ku qaaday wadamada gacanka, waxaana lagu baaqay in si degdeg ah magdhow loo siiyo dhammaan dadka ay waxyeelo ka soo gaartay iyo dalalka. 47 xubnood oo ka tirsan golaha qaramada midoobe ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa taageeraya qaraarkan ay soo gudbiyeen wadamada gacanka ama golaha iskaashiga gacanka iyo wadanka Jordan oo cambaareynaya tillaabooyinka Iiraan ay ka qaaday wadamadooda kuna xirtay marinka Hormuz. waxayna dalbadeen in si dhaqso ah xabad joojin loo gaaro weerarada gardarrada la joojiyo. dhinaca kale golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa qaban doona dood kale maalinta Jimcaha oo looga hadlayo iskuulkii wadanka Iiraan ee la duqeeyay oo 160 iyo dheeraadka ardayda ay ku dhinteen ee gabdhaha ahaa. Sedato Reza oo madaxweynaha golaha ayaa ku dhawaaqday doodaasi in lagu difaacayo xuquuqda ardada iyo goobaha waxbarashada marka ay timaado colaadaha caalamiga ah. doodan ayaa waxaa codsaday wadamada Iiraan, Shiinaha iyo Kuuba, waxaana sidoo kale la soo xiganayaa duqeynta xagga cirka ee iskuulkii ee koonfurta magaalada ku taala Minaab la yiraahdo lagu dilay maalintii ugu horeysay ee dagaalka bishii February 28-keeda arday. ku bilowna warkan hadda soo dhacay ee ugu dambeeyay Iiraan waxay leeyahay horta way diiday hindisihii Mareykanka, waxayna soo bandhigtay shuruudo adag. waan la soo koobay shuruudahaasi. maxay yihiin shuruudahaasi? inoo faahfaahi, waan sii faahfaahin doonaa. telefishinka afka Ingiriiska ku hadla ee Iiraan ay leedahay Press TV la yiraahdo ayaa laga soo xiganayaa Iiraan inay ku gacan saartay hindisaha oo Mareykanka soo jeediyay dagaalka lagu soo afjarayo. taa bedelkeedina Iiraan waxay soo gudbisay qodobo ay ayada u aragto inay yihiin kuwo munaasaba. Iiraan dagaalka waxay ku joojin kartaa markii ay go'aansato ayada in dagaalka ay joojinayso ama la gaaro hadafyada ay dagaalka ka leedahay iyo shuruudaha. sarkaalka ayaa sheegay wax wada xaajooda oo lala geliyo ma jiraan cid kale ilaa iyo hadafyadaas la gaarayo. Iiraan ayaa ku sheegtay howlgaladeeda inay yihiin kuwa isdifaaca siina wadi doonto ilaa iyo shuruudaha ay ayada rabto laga helayo. sarkaalka ayaa waxa uu ku tilmaamay hindisaha Mareykanka inuu yahay mid ka badbadin ah. sarkaalka ayaa sidoo kale sharaxay dalabaadka Iiraan ay ku joojinayso dagaalka inay tahay in weerarada laga joojiyo iyo khaarijinta, in la damaanad qaado in aanan weerar mustaqbalka Iiraan lagu soo qaadi karaynin, in magdhow la siiyo Iiraan la xiriira wax allaale wixii khasaare soo gaaray, in la soo afjaro colaadaha ka jira dhammaan ururada xulufada laha waddanka Iiraan, iyo in wada xaajoodka lagu daro in loo aqoonsado Iiraan in ay tahay cidda maamusha oo awoodda u leh inay maamusho marinka Hormuz. hadalladan ayaa waxay soo baxayaan kadib markii mas-uul sare oo Iiraaniya uu sheegay wakaaladaha wararka ee reer galbeedka
in dowladda Pakistan ay hindise uu Maraykanku soo gudbiyo 15 qodob ka kooban u gudbisay waddanka Iran iyo Turkiga iyo Pakistan oo loo tixgelinayo goobaha laga yaabo in wada hadallada lagu qabto. waxay tahayba Iran hore ayay u sheegtay in aynan wada hadal toos la gelin Maraykanka. wada hadalladii dadbanaana laba goor oo hore ayuu khiyaano sameeyey Maraykanka in aan la aamini karin ayay hore u sheegtay. waa gartay waayahay maxamed haddii marka aynu dul istaagno Maraykanka 15 qodob oo lala yaabay buu sheegay oo saaki aynu ku soo qaadanay barnaamijkii xulashada wararka waxaana lagu tilmaamay isdhiibid ilaa marka haddii ay ka hortimid ma la oran karaa markii horeba Trump daacad kama ahayn waayo waxaan hadda ay soo gudbiyeen Maraykanku waa wixii ay diideen markii Geneva lagu shareeyay ma la oran karaa markaas inuu ama suuqa ku dejinayay shidaalka ama inuu sameynayay in ciidamada Maraykanka gobolka uu keeno maxay tahay qodobadan Maraykanka uusan ogyahay inaan la aqbalayn uu u soo qaatay su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u fiican. khabiirada qaar sida hadalku dhigayaan Maraykanka inuu jabay oo waxba isku haynin ayay ka hadlayaan. waraaqaha iyo waxa la qoraya iyo waxa la gudbinayana waxa weeye waqti ayaa lagu gadanayaa oo ciidamo lagu soo urursado. Trump hore ayay u sheegeen dadka yaqaana arrimaha militariga inuuna ehel u ahayn inuu abaanduulo fiican yahay oo dagaal Maraykanka u horseedi kara. dagaalkana waxaa lagu sheegay inuu qaanuunka Maraykanka xataa qaabilsan yahay ee khilaafsan yahay oo Congress-ka Maraykanka una naasixin. xilligii uu lahaa madaxweynaha oo muddo bilana dhowr maalmood ayaa ka hartay. weli way fogaanayaan waxay leeyihiin ninkani iska daa in uu dagaal maareeye naftiisa ayuu maareyn karinin hadalladiisa ayaa asduqaynaya. qoraalada ay soo gudbinayaan iyo waxay soo gudbinayaan Iran ma ka hoos qaadayso. Iranna ma ogola in la khiyaano. Iran way ogsoon tahay inay ka gacan sarreyso Maraykanka kuna qasbayso waxa ay rabto. Maraykanka haddii xataa khiyaaraadka uu ka fakerayo ee dagaalka ah warbaahinta reer galbeedka laftirkeeda ayaa ka hadlaysa in khiyaaraadka mid khayr badan inuu ku jirin. barnaamij gaar ayaan ka sameynay oo idaacadaha soo socda soo geli doona oo ah 4 khiyaar ee Maraykanka hortaagan mid u wanaagsan ma jiro mid walba mid kale waa ka xun yahay. waxa ay ku soo gabagabeynayaan in uu guul inta ku dhawaaqo uu cararo. waxaana muuqata qodobadan uu Maraykanka qorayo iyo waxa uu qorayo xataa laguma dhaco erayada sidii ahayn in loo qoro. idaacadihii ayaa hadda waxay isku dayayaan in ay maareeyaan oo ay afuufaan propaganda afuufaan. laakiin xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay cid walba ayada isku hadlaysa. wakaaladihii wararka ee reer galbeedka iyo idaacadihii ay reer galbeedku lahaayeen cid war ka dhageysanaysa lama arko. dhegta waxaa lagu hayaa wararka ka soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran waraysiyada uu bixinayo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Abbas Araghchi afhayeenka ciidamada ilaalada kacaanka warbaahinta kulamada uu la yeelanayo. Maraykanka wuxuu Iran ka sheego cid ka hoos qaadaysa lama arko. dagaalka dhowrkii saacadood ugu horeeyay ayuu burhaan lahaa burhaantiina waa jabtay. dagaalka hadda wuxuu marayaa bil ayuu ku dhow yahay. wiigii afraad ayaa cagaha la geliyey. waxaana muuqata xaaladda Maraykanka haysata iyo sida ay u dhigayaan khabiirado dhan meel wanaagsan inay jirin. Maraykanka marka wax alaaliyo wuxuu qoro iyo wax alaaliyo wuxuu soo jeediyo Iran inay ka hoos qaadayso ma muuqato. waxayna u badan tahay haddii la rabo inuu dagaalkan istaago in Maraykanku uu khasaarihiisa yareeyo sida ay u dhigeen khabiiro aarahdii oo dhan miisaamay. waxayna leeyihiin waxaa u roon inta guul sheegto inuu meesha ka cararo. waxayna keenaysaa bay yidhahdeen arrintaasi in Iran gobolka bariga dhexe ay ka noqoto cidda ugu murqaha kuusan oo aanan wax dambe iyo dabagal dambe lagu samayn doonin. sababta awood buuran bay noqonaysaa. barnaamijkeeda nuclearka iyo arrimaheeda cunaqabatayntana